سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنو وناكسن داوديال meel kastu aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay geyga Soomaaliya qodobada degdega ah oo aan idin hayo waxa qayb ka noqon doona diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dawladda Jamhuuriyadda Djibouti ayaa xilligan waxay dhoolatus ka wadaan xuduudda ay wadaagaan Djibouti iyo sidoo kale Somaliland waxa laga cabsi qabaa in meelaha qaar ay duqeymo la eegtaan waxaan ku soo gudbin doonaa tirada diyaaradaha lagu arkay xadka iyo Somaliland oo si adag uga carootay arrinkaasi qodobada kale aan kula wadaagi doono waxa qayb ka noqon doona boqolaal dagaalyahan oo ka tirsan ciidanka beesha Ciise oo xilligan gudaha u galay tuulada xariirka iyadoo laga cabsi qaba inay dagaal mar kale halkaasi ka dhacaan iyana macluumaadka wararkii ugu dambeeyay ayaan ku soo gudbin doonaa waxaan kale ku soo gudbin doonaa madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro oo hadal adag u sheegay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo ka soo jeeda beesha Samaroon isagoo oo madaxweyne ku-xigeenku dalbaday hub u siiyo beeshiisa qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan saaxiibayaalidiin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada hadeeta markii kugu horeysay ku soo biir daraja media waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaada qaybta commentiga ee noogu reeb muuqaalka aad daawanaysidna like saar waxaan ku bilaabayaa qodobkeena ugu horeeya ee diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dawladda Djibouti iyo ciidamada Faransiiska ayaa dhoolatus inaba aan caadi ahayn hadda aan kula hadlayo waxa ay ka wadaan xuduudda ay wadaagaan Somaliland iyo sidoo kale Jamhuuriyadda Djibouti حتى waxaa laga cabsi qabaa diyaaradaha Djibouti inay duqeymo la eegtaan maleeshiyaadka firxadka ah ee beesha Samaroon kuwaas oo ku soo duulay dhulka beesha Ciise weyne diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helicopterka kuwa la yiraahdo F-87 iyo jiilkii ugu dambeeyay oo uu farsameeyay Faransiisku Djiboutina gacanta loo geliyay ayaa la soo warinayaa in dhoolatuskan ay ka qayb qaadanayaan waxa laga cabsi qabaa inay basaasaan xerooyinka ay joogaan ciidanka Somaliland ama kuwa beesha Samaroon ama xataa inay duqeymo fuliyaan meelaha qaar waxa laga arkayaa uuro iyo dab cirka isku shareeray taas oo ku tusinaysa in dhulka buuraleyda ah ee dhanka Djibouti xiga meelaha qaar ciidamada Djibouti iyo kuwa Faransiisku ay duqeymo ka fuliyeen saacada ay diyaaradaha Djibouti ku burburin karaan saldhigyada ay ku sugan yihiin ciidanka beesha Samaroon iyo kuwa Somaliland laakiin wax badan ayaa la xiriiraya ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha laanta sirdoonka Jamhuuriyadda Djibouti Djibouti waxay sheegtay in haba yaraatay xilligan aysan doonayn daandaansi iyo dulmi ka dhan ah Somaliland laakiin hadii dalkeeda lagaga soo duulo dhinaca Somaliland ay duqeymo fulin doonaan nooca wararkii ama nooca jiilkii ugu dambeeyay ee diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo sidoo kale kuwa inaba aan caadi ahayn ee ka qayb qaata duqeymaha ayaa la soo warinayaa inay ka qayb qaadanayaan dhoolatuskan oo ah midkii ugu ballaarnaa oo ay fuliyaan ciidamada Faransiiska iyo sidoo kale kuwa Jamhuuriyadda Djibouti ilaa 4 xubnood oo ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka Djibouti ayaa warbaahinta darajo waxay u sheegeen in laga cabsi qabo in duqeymo xoogan lala eegto saldhigyada ay ku sugan yihiin ciidanka Somaliland sida uu sheegay sargaal sare oo ka tirsan ciidanka Jamhuuriyadda Djibouti oo la hadlay warbaahinta gudahaas wararka iyo macluumaadka waxa ay tilmaamayaan in dhowrkii saac la soo dhaafay sidaas oo kale ay diyaaradaha Djibouti en dul hab ka sameeyaan ama dulmar ka sameeyaan aaga magaalada ama aaga xuduudda ay wadaagaan Ethiopia Djibouti iyo sidoo kale Somaliland khubaro badan oo arrimaha la socotana waxay leeyihiin waxa xataa dhici karta in meelaha qaar laga arko duqeymo xoogan oo ay fuliyaan ciidamada Jamhuuriyadda Djibouti sargaal sare oo ka tirsan Jamhuuriyadda Djibouti oo la hadlay warbaahinta wuxuu sheegay in haba yaraatay aysan jirin wax xilligan suurta gelinaya in laga yaabo in la fuliyo duqeymo isagoo sheegay inaysan xilligan macquul ahayn in duqeymo laga fuliyo Jamhuuriyadda Djibouti taa beddelkeedana ay ilaalinayaan xasiloonida iyo wada dhalashada sargaalkan wuxuu tilmaamay in haba yaraatay aysan jirin xeer siinaya ama xeer dhaqan oo siinaya inay duqeymo fuliyaan ama ay duqeymo la eegtaan ciidamada Somaliland iyo kuwa beesha Samaroon isagoo sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwa been abuur ah oo lagu marin habaabinayo bulshada Soomaaliyeed si walbaba ha ahaatee dadka arrimaha la socda ayaa waxay aaminsan yihiin in Jamhuuriyadda Djibouti ay si weyn oo la socoto dhaqdhaqaaqa ay wadaan maleeshiyaadka beesha Samaroon
kuwaas oo dharaariya habeen lagu eedeynayo in ay ku lug leeyihiin ficillo foolxun oo ka dhan ah qarannimada Soomaaliya ama qarannimada Soomaaliya, kuwaasoo la sheegay in 48 saac la soo dhaafay la arkay in ay fulinayaan duqeymo inaba aan caadi ahayn. waxay ku soo kordha daawadayaal warka ku saabsan howlgallada la leeyahay ciidamada Jamhuuriyadda Djibouti waa ay ka wadaan xuduudda Somaliland. waxaan idinkugu soo tabin doonaa wararkeena dambe haddii Allah awood la raali ka noqdo. markana qodobadeena kale, boqolaal dagaalyahan oo ka tirsan ciidanka beesha Ciise Weyne ayaa goordhow waxa ay ka soo tallaabeen dhinaca Itoobiya iyaga oo soo galay xuduudda Somaliland, gaar ahaan aaga magaalada Ceelgaal. waxaa la soo warinayaa xiisadda u dhaxaysa beelaha walaalaha ah ee Samaroon iyo Ciise inay hadda gaartay meeshii ugu sarreysay oo laga cabsi qabo in duqeymo xoogan ay dhacaan ama dagaalo toos ah ay dhacaan, kuwaas oo ay dad badan aaminsan yihiin in ay noqon karaan kuwii ugu dambeeyay oo isku dhac ciidan ah. saraakiil sarsaro oo ka tirsan ciidanka beesha Ciise waxay tilmaameen in xilligan iyagu aysan u diyaarsaneen inay dulmi iyo daandaansi ka fuliyaan meelo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed. wuxuuse taa beddelkeeda sheegay haddii Djibouti la isku dayo in lagu soo duulo inaysan gacmaha laaban doonin oo ay iska celin doonaan cid walba oo dulmiga iyo daandaansiga wada. hadalkan dabcan wuxuu u egyahay mid hanjabaad ah oo weliba ka dhan ah cid walba oo isku dayeysa in ayna soo gardaraysato. waxaan ka qaadaynaa tallaabo cad, taasi oo dabcan ku tusinaysa in xeerka iyo qawaaniinta hadda u yaala Djibouti iyo Somaliland iyo waxay hore ugu shaqeynayeen oo ah in xuduudda si nabadgelyo loo wada sugo ay hadda dabcan sheekadu u muuqato mid faraha ka sii baxaysa, taasi oo ay dad badan u arkaan inay tahay fariin aan caadi ahayn oo markaasi loo dirayo cid walba oo la isleeyahay waxa ay ka shaqeynayaan xasilooni darrada Jamhuuriyadda Djibouti. Djibouti tiro dhowr jeer waxay sheegtay inaysan u dulqaadan doonin isla markaana aysan aqbali doonin wax walba oo ku saabsan in la carqaladeeyo nabadda iyo xasiloonida ka jirta Jamhuuriyadda Djibouti. waxaana taa beddelkeeda la arkayay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo darafyo kale ka imaanaya, kuwaasoo la sheegay inay xaaladda uga sii darayaan. Somaliland iyo Djibouti kal hore waxay ku heshiiyeen in xuduudda marka la joogo laga wada shaqeeyo nabadgelyada, xaaladda la dejiyo, lagana wada hadlo wixii cawaaqib ah ee markaasi jira. laakiin waxaad moodaa waxyaabihii hore loogu heshiiyey in ay hadda beeldaroobeen oo ay fashilmeen. hadda marka laga hadlaya xaaladana ay taagan tahay meel geeri go'on ah oo u muuqata xataa inay dhinacyadu gacmaha isa saaraan oo ay xaaladdu noqoto meel aan waxba laga qaban karin. si haddaad u eegtid dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, xataa dhacdooyinka halkaasi ka jira waxay u muuqdaan in ay dhinacyo kale aadeen oo ay xaaladdu meel kale qabatay, tii oo la soo warinayo in hadda la leeyahay waxay xaaladdu maraysaa meel aan waxba laga qaban karin. si walbaba ha ahaatee, wararka iyo macluumaadka la helaya waxay tilmaamayaan haddii Somaliland iyo Djibouti ay arrinta isku fiirsadaan, yacni xuduudaha waxaa ka soo tallaabaya ay isku fiirsadaan, inay dabcan xaaladdu faraha ka bixi doonto. qodobkeena ugu dambeeyana, madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa la soo warinayaa in uu ka diiday madaxweyne ku-xigeenka Somaliland arrin la yaab leh oo ku saabsaneyd in beeshiisa Samaroon la hubeeyo. sheekada la yaab kale ayaa waxay ahayd in madaxweyne ku-xigeenka Somaliland uu rabay in la hubeeyo isla markaana hubka noocyadiisa kala duwan la siiyo beeshiisa Samaroon si ay dagaal ula galaan beelaha beesha Ciise. laakiin qorshahaasi waxaa la sheegay in uu diiday madaxweyne Ciro, isagoo taa beddelkeeda u arka in haddii la hubeeyo beesha Samaroon, Djiboutina ay beesha Ciise hubeynayso, dagaalkuna hadda inta la filan karo uu ka sii weynaan karo oo la arki karo isku dhacyo ka waaweyn wixii hore loo filayay oo ah in dagaalla halkaasi ay ka dhacaan. dadka arrimaha la socda sidoo kale waxay leeyihiin haddii xaaladdu dabcan sidan ay ku sii socotana waxaa la arki doonaa wax badan oo aan ahayn wixii hore, kuwaasoo xataa laga cabsi qabo inay xaaladda geliyaan mugdi kale oo kasoo kabashadeeda ay adag tahay. laba sargaal oo ka tirsan ciidanka Somaliland ayaa waxay sheegeen in hadda laga yaabo xataa inuu khilaaf ka dhex qarxo beesha Samaroon iyo Somaliland, sababtoo ah Somaliland iyadu ma rabto inay hubeyso beesha Samaroon si Ciisuna aysan Djibouti u hubeyn. marka
waxyaabo badan oo la xirinaya ayaa jira oo ay dad badan aaminsan yihiin in haddii xadkaasi laga talaabo dabcan la arki karo isku dhacyo waaweyn oo weliba ka weyn inta hadda la filan karo iyo inta hadda laga cabsi qaba inay xaaladdu faraha ka baxdo wixii saaxiibayaal ku soo kordha dhammaan qodobadii aan idin marnay waxaad kaga bogan doontaan wararkeena dambe haddii tahay markii kugu horeysay nagu soo biir oo subscribe dheh daraja media waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada aan halkan mar walba ku daamacno aragtidaadana qaybta commentiga inoogu reeb soo dhawaada saaxiibayaal